saaxiibadayda qaaliga ahow marka hore salaamullaahi calaykum meel waliba adduunka aad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku soo qaadan doono warbixinadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaana qayb ka noqon doona afar xidig oo Manchester United ka maqnaan doona kulanka adag oo ay wajihi doonto Leicester City waa maxay habaarkan difaac kale oo ka dhaawacmay Real Madrid iyo xaaladeeda oo maraysa meel xasaasi ah Juventus oo gabi ahaanba laga reebi doono kal ciyaareedka soo socda horyaalka Serie A Talyaaniga siday wax u dhacayaan wararkii suuqa ayaan ka marnaan doonin barnaamijkeena iyo xogo kale oo aad u xiiso badan balse marka hore ha iloobin inaad like sarto muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahayna soo dhawow oo subscribe dhaho janaalkeena mahadsanid halkani waa Tulito Channel balse marka hore aan ku bilaabano barnaamijkeenne afar ciyaartooy oo muhiim ah ayaa ka maqnaan doonta Manchester United kulanka salaasada ay la ballansan yihiin dhigooda Leicester City waana ciyaar muhiim u ah afarta boos ee ugu sareysa horyaalka Premier League United waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee horyaalka wax walwal ahna kama qabto inay lumiso booskeeda laakiin natiijada ka soo baxda ciyaartan ayaa waxa ay noqon doontaa mid saameyn weyn ku yeelan doonta booska saddexaad iyo midka afaraad Leicester City waxay ku jirtaa haatan kaalinta afaraad ee horyaalka EPL-ka haddii laga badiyana waxa ku soo dhawaan doonta West Ham oo u jirsan doonta 2 dhibcood iyo Liverpool oo 3 dhibcood ay u dhaxayn doonto haddii iyadana ay awood u yeelataba kulanka Khamiista in ay ka badiso Manchester United halka Tottenham aanay wax badan ka dambayn doonin waxa kaloo ciyaartan saameyn ay ku yeelan doontaa kaalinta saddexaad oo Chelsea hadda ay iska dhex mushaaxayso waxaana si kumeel gaar ah ula wareegi doonta Leicester City haddii awood ay u yeelato inay soo dhaafto Manchester United xilli saddex ciyaarood ay ka heersan tahay dhamaadka kal ciyaareedkan United waxa isugu xiga kulamo adag oo ay wajihi doontaba Leicester City iyo Liverpool waxaana Red Devils ciyaarta habeen dambe ka maqnaan doona afar ciyaartooy taasi oo faa'iido u noqonaysa kooxda laguna neeso Dhawacyoka Captain Harry Maguire oo dhaawac ugu baxay ciyaartii Aston Villa ayaa liiska dhaawacyada kula soo piiray Anthony Martial, Daniel James iyo Phil Jones waxaana dhamaantood afartan laacib ay seegayaan kulanka Leicester City iyadoo sidoo kale aan la hubin in qaarkood ay ku soo laaban karaan kulanka Liverpool ee u xiga Phil Jones ayaa ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan waxa la filayaa inuu ku maqnaan doono dhaawac lamana rajaynayo inuu soo laaban doono ma jirto fursad uu Mohamed Salah isna uu dib ugu soo laaban karo tilaabadiisii Chelsea iyo galbeedka London marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee soo aadan sida ay qotay jariiradda Atlantic ku soo laabashada cajiibka ah ee Stamford Bridge weeraryahanka reer Masar ayaana la xusayaa inay tahay waxaanan sahlanayn geesigii Liverpool in uu yimaadana Stamford Bridge waxay u noqon doontaa sooyaal kale oo aan wacnayn waxaana loo saadaalinayaa inuu mari doono tubtii Fernando Torres oo kale maxaa yeelay isagoo ka diiq ah Anfield ayuu yimid Stamford Bridge ilaa iyo uu noqday faras fajacay oo waxba ka goyn waayay fagaarayaashii uu ka soo muuqday taasi mid la mida ayaana loo saadaalinayaa wiilka reer Masar laakiin Liverpool waa macquul inay iska iibiso wiilkan oo ay ka iibiso waliba kooxda ay xifaaltamaan laakiin wararka ayaa tilmaamaya inay ka qaadan doonto lacaga badan Thomas Tuchel ayaana la sheegay in si gooni ah isha uu ugu hayo xaaladda Mo Salah uuna doonayo inuu ku soo celiyo galbeedka waana doc ka yimid macallimka ka soo jeeda Jarmalka Real Madrid iyadana waxay doonaysaa in gacanta suuqa xagaygan ay ku soo dhigto mashiin qad dhexe oo waliba cajaa'ib leh Eduardo Camavinga ayaana loo arkaa inuu yahay wiil kale oo lagu soo kordhi karo kooxda sanadiin Yaasi Zidane oo isagaba loo saadaalinayo marka uu dhamaado kal ciyaareedkan in kooxda uu ka bixi doono Camavinga wuxuu qiray inay tahay wax fiican in lala xiriiriyo kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub sida Real Madrid iyo Bayern Munich
laakiin ciyaaryahanka reer Faransa wuxuu qiray haatan in diiradda uu saarayo qaab ciyaareedkiisa 18 jirkan waxa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah dhalinyarada kubadda cagta ee ugu fiican qaaradda Yurub waxaana la rumaysan yahay inuu bartilmaameed u yahay Real iyo Bayern sidoo kalena waxa xiiseynaya kooxo kale oo waaweyn oo ka dhisan qaaradda Yurub Kamavinga ayaana soo dhaweeyay wada hadallada xagga suuqa oo ay kula jiraan kooxaha ugu waaweyn Yurub waxaana uu yiri waa wax fiican marka laga hadlayo inay ku xiiseynayso koox weyn laakiin haatan waxaan diiradda saaraya qaab ciyaareedkayga been ma sheegayo cilcilis ahaan xilli ciyaareedkan waxaan soo maray waqti cajiiba Kamavinga ayaana lagu tilmaamaa inuu yahay bogbaha cusub ee dunidan marka loo eego kalsoonida uu qabo marka banooniga lugtiisa uu ku jiro farsamadiisa xooggiisa socodkiisa iyo weliba orodkiisaba tani waa musiibo la dhihi karo waxay si gaar ah u abaaraysaa kooxda sanadiin yaasisidaan oo weliba dagaal adag ugu jirta sidii mar kale ay ugu guulaysan lahayd horyaalka La Liga Spain kooxda Isbaanishka waxaa toddobaadkii hore dhaawacyo kaga baxay Sergio Ramos iyo Ferland Mendy oo garoomada ku soo laabtay kulankii Chelsea waxaana labadaba ay awoodi waayeen inay ka qayb noqdaan kulankii Sevilla ee ka dhacayay Alfredo da Stefano Rafael Varane ayaa horey ugu maqnaa dhaawac 2 toddobaad uu u fadhiyo waxaase ka sii darnay inay macsalaameeyeen Lucas Vazquez iyo Dani Carvajal Alvaro Odriozola oo qaab ciyaareed wanaagsan muujiyay kulankii ka dhacayay Alfredo da Stefano ayaa isna dhaawac ku dhamaystay kadib markii jug ay ka soo gaadhay inta ay soconaysay ciyaartii barbardhaca 2-2 ay la galeen kooxda Sevilla difaacii hore ee Real Sociedad ayaa taakulo iyo weliba hirdan badan sameeyay oo dhanka daafacashada ah waxauna ahaa shakhsi qabtay shaqo badan laakiin nasiib daro kulankani kuma dhamaysan tam ahaansha buuxa waxaana dhaawac uu ka soo gaaray muruqa lugta midig Real Madrid ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dhaawac muddo uu garoomada ugu maqnaanayo uu soo gaaray Alvaro waxaana shaki la gelinayaa inuu taam u noqonayo kulanka Khamiista ay la ciyaarayaan Granada oo ah koox horay u soo dhibaataysay kooxda Blaugrana oo joogtay weliba Camp Nou Los Blancos ayaa Khamiista waxayba hooygeeda ugu tagi doontaa kuwii soo dilay Messi iyo Barcelona waxaana ay ku qasban yihiin inay guul ka keenaan haddii ay doonayaanba inay u sii tartamaan ku guulaysiga horyaalka La Liga kooxda laguna neeso shiyadinta cascas ee Manchester United iyadana waqti xaadirka kan waxa ay ku jirtaa dagaal weyn oo ay doonaysaba inay kaga afduubato kooxaha Chelsea iyo Manchester City tartanka loogu jiro weeraryahanka kooxda Tottenham ee Harry Kane sagootin murugale ayaa la filayaa inay u samayso Tottenham kabtanka xulka qaranka Ingiriiska oo maxaa yeelay waxay awoodi la yihiin inay xaqiijistaan booska loogu soo baxo Champions League kal ciyaareedka nagu soo wajahan Kane waxa loo saadaalinayaa inuu dhamaystiri doono ku biirista koox weyn oo ka dhisan EPL-ka sida ay qortay Football United ayaa xoojinaysa baacsiga loogu jiro 27 jirkan iyagoona indhaynaya sida ugu sahlan ee weeraryahankani ay ku keeni lahaayeen Old Trafford warbixinta waxay muujinaysaa in United ay diyaar u tahay xitaa in Tottenham ay miiska u saarto adduun lacageed gaaraya 90 milyan waana ciyaariyaan si weyn loogu dagaalamayo xagga suuqa xagaa'igan Harry Kane ayaa soo jiitay kooxaha ugu waaweyn Premier League kadib markii uu ku lug yeeshay 34 gool sidoo kale Premier League xilli ciyaareedkan waxa uu ka dhaliyay 21 gool isagoo sameeyay ilaa 13 caawin waana gool dhaliye kuma caawiye waa sababta ay u wada xiisaynayaan kooxaha ugu waaweyn ee cariga Ingiriiska kooxda Juventus iyadana madax xanuun kale ayaa ku habsaday xilli ay la murugsan tahay guuldaradii qaraarayd oo ay istaadiyaheeda Alinis iyo magaalada Turin ay kaga qaabishay AC Milano oo dhaawac weynna gaarsiisay fursadii kooxdan ay ugu qayb gali lahayd tartanka Champions League ee kal ciyaareedka soo socda marwada duqda waxay ka mid tahay kooxaha saldhigga u ahaa
tartankii fashilmay ee Superliga laakiin wali waxaa ku sii adkaysanaya mashruucan in halkiisii uu ka sii socdo iyaga iyo waliba Real Madrid oo lagu daray kooxda Blaugrana. kooxahani waxay ka walwalsan yihiin qorshaha fashilmay oo ay kaga lumayso malaayiin lacageed inkastoo horeyba tartankaasi ay isaga baxeen ilaa iyo 9 kooxood oo u xaqiijiyay UEFA isla markaana ay ganax dul dhigtay kuwaasi oo kala noqonaya Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Inter Milano, Atletico Madrid iyo AC Milano. UEFA toddobaadkan horaantiisa waxay sheegtay in 3 kooxood ee kala ah Real Madrid, Barcelona iyo Juventus in ay ka qaadi doonto tilaabo adag. 3daba waxay diideen inay aqbalaan hanjabaadda ka soo gaadhay UEFA iyo xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Juventus oo jira iyo xanuunba ay ku noqotay inay u dhaadhacdo booska shanaad ee horyaalka Seerada Talyaaniga ayaa waxa u sii xigtay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee Italy Gabriele Garavina inuu ku dhawaaqay uu xaqiijiyay Juventus inuu ka saari doono ka qaybgalka horyaalka dalkaasi haddii qayb ay ka sii ahaato Superliga. Gabriele oo warbaahinta la hadlayay ayaana yiri haddii marka la sameeyo isku aadka xilli ciyaareedka cusub ee Seerada Talyaaniga aysan ka bixin Superliga, Juventus waxa laga saari doonaa horyaalka. waxaa jira sharci cadaan ah oo qeexaya kaasi oo ka turjumaya qayimka xiriirka taasi oo la micno ah in Juventus kal ciyaareedka soo socda xitaa ay way doonto horyaalka Italy. Kylian Mbappe isna waxa lagu soo waramayaa inuu hakad geliyay in heshiis cusub uu u saxiixo kooxdiisa. kooxda haysata horyaalka Faransa dhawaan waxay ku guuleysatay in Neymar ay ku xirto heshiis cusub oo gaaraya ilaa iyo 2025 waxaana haatan la rumaysan yahay in mudnaanta ay siinayaan sidii heshiiska ay ugu kordhin lahaayeen Mbappe. PSG ayaa la filayaa in horyaalka ay la wareegi doonto waxaana ay la kulmeen qalbi jab tan iyo markii wareegga afarnamaadka ay ku soo ciribtirtay Manchester City. sida laga soo xigtay jariirada Televote cusboonaysiinta heshiis ee Neymar ma noqon mid badalay mowqifka Mbappe. laacibka ku guuleystay mundiyaalka dunida ayaana la filayaa inuu u weecan doono xagga Real Madrid ama Liverpool oo saacadihii ugu dambeeyayba si weyn loo buubuuninayo inay aad u xiisaynayaan. Mbappe wuxuu shabaqa soo taabtay 25 jeer 29 kulan uu ciyaaray. wanaga inta barnaamijkii uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman.